السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السوداء واضح آدي آدي أمهات سنتهين maanta waa afarta bisha saddexaad ee March sanadka 2025 Ramadaan Mubaarak ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad ku soonteen muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago maxkamadii magaalada Minneapolis uga socotay haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future ee Amy Back iyo Salim Saciid oo isaguna milkiilayaasha maqaayadda Safari kamid ahaa oo toddobaadkii ugu dambeeyay gashay hadaba maalmihii ugu dambeeyay yaa marqaati ahaan loo soo istaajiyay maxkamadda oo gabagaba hadda maraysa Trump oo mar kale canshuurtii taarifka ahayd ku soo rogay wadamada Canada iyo Mexico iyadoo sidoo kalena uu ku kordhiyay Shiinaha waxaana durbaba ka jawaabay dowladda Shiinaha dowladda Canada waxay sheegtay inay ka jawaabayso arrintaasna sidoo kale waan idin la socodsiinaya toddobaadkii ugu dambeeyay ayay ku jirtaa maxkamadda magaalada Minneapolis uga socota Amy Back haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future oo lagu eedeynayo musuqmaasuqa lacagtii 250 milyan ahayd waxaa maxkamadda la saaran Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayadda Safari kamid ahaa oo isagana labadooduba la doonaya in la cadeeyo in ay ogaayeen musuqmaasuqan si ula kacana ay u sameynayeen hadaba Amy Back ayaa waxa ay dacwadayaasha isku dayayaan in ay cadeeyaan in Amy Back ay ka warqabtay in musuqmaasuqan uu dhacayo waxna ay ka qaban kartay laakiin waxba aysan ka qaban oo ay iska fiirsanaysay waxa shalay maxkamadda sargaal ka tirsan FBI-da oo baaritaanka ku sameeyay kiiskan marqaati ahaan loo soo istaajiyay waxaana la soo bandhigay fariin qoraaleedyo iyo waliba waxyaabo kale oo cadeynaya in Amy Back ay ogeyd arrintan isla markaana sidoo kalena aysan waxba ka qabanin sidaas darteedna ay iska fiirsanaysay oo kaliya waxaana la soo bandhigay in qaar kamid ah meelaha cuntada laga bixinayo Feeding Our Future ay lacagtaasi siinaysay in ay ka aamuseen isla markaana ay shib ka yiraahdeen musuqmaasuqaasina ay ogaayeen in goobahaasi ay ka socdaan Amy Back ayaa intii arrintan ay socotay oo qof baraha bulshada waxa uu soo galiyay in Amy Back musuqmaasuqan oo egeed waxayna ugu hanjabtay in qareenkeeda maalinta bari ah uu soo wici doono isla markaana qofkaasi uu cabsi galin doono sida ay sheegtay waxaana fariin qoraaleedyo ay u dirtay dadka iyada kala shaqeynayay Feeding Our Future oo shaqaalaheeda kamid ah la sheegay in ay fariin qoraalyadeeda ay kamid ahaayeen we may have become the mob waxaan noqonay kooxaha burcadda oo kale ayada ayaa fariin qoraaleedkaasi qof u dirtay sidoo kalena waxyaabaha la soo bandhigay waxa kamid ahaa in Salim Saciid fariin qoraaleed ay u dirtay isla markaana ay ku muujinayso in qof Soomaali ah oo social media ku jira uu soo bandhigay in dahab iyo sidoo kalena giftiye kale oo aroos oo $100,000 ku kacaya in qof ka tirsan shaqaalaha Feeding Our Future oo baraha bulshada soo galiyay qof Soomaali ah marka ayaa soo share gareeyay waxaana uu ku soo qoray arrintan waxay muuqaal xun ka bixinaysaa dadka Soomaalida ah markii arrintaas aragtay kadib ay fariin qoraaleed ay u dirtay Salim Saciid Amy Back ay ku leedahay arrintaasi iga nadiifi macnaha laga saaro baraha bulshada arrin waxyaabahaasi la soo galiyay ay Amy Back ay qoraalkaasi ugu qortay waxa ay sidoo kale sheegtay in dadkaasi markaasi ay ugu hanjabtay in ay maxkamad la tiigsanayso oo dacwad ceebeyn ah in maxkamad ay kula tiigsanayso marka arrimahaas oo idil waxay muujinayaan ayaa la leeyahay in Amy Back ay ogeyd musuqmaasuqan laakiin si ula kacay isaga dhagatireysay oo aysan doonin inay waxba ka qabato lacagahaas iyada kickback oo la siinayo kaliya ay fiirsanaysay lacagahaas marka ay bixiso oo dadkaasi sheeganayeen in cunto bixinayaan laakiin cunto aanan bixinaynin sidoo kalena waxa toddobaadkii hadda dhamaaday maxkamadda marqaati furahaan loo soo istaajiyay Maxamed Xuseen oo isaguna maqaaxi ku lahaa Faribolt isaga iyo xaaskiisa Luul Cali oo iyadana toddobaadkii koowaad marqaati furtay waxaana ay sheegtay in shaqaalaha Feeding Our Future ay la FaceTime ahaan ay ku wacayeen Amy Back isla markaana sidoo kalena ay maqaayadaha intii tagaan ay dhahayeen haye waxaad sheegatay inaad cunto bixinayso lacag intaas la eg ayaad helaysaa marka ayaga ayaa nagu amray ayuu yiri in aan beentaasi sheegno sidoo kalena waxa uu sheegay inay nagu yiraahdeen inaad kun cunto ah maalin kasta aad bixinaysaan oo caruur aad siinaysaan waa inaad sheegataan mar
markasta oo aad sheegto in cunto badan aad bixinayso lacag fara badan ayaad helaysaa. marka maxamed xuseen wuxuu yidhi anigu Amy Back FaceTime ayaan kala hadlay, taleefonna kulama hadlin, email ahaanna ma aanan kula xiriirin, laakiin wuxuu yidhi marka toddobaad kasta lacag gaaraysa 200,000 ilaa iyo 250,000 naloo keeno waxa aan bixinayna ayuu yidhi 30,000 oo kaasha oo kickbacka. marka lacagtaasi naloo keenana dadka Soomaalida ay noo keeno Amy Back ayay FaceTime ahaan ay ku wacayeen, sidaas darteedna iyada ayaa lacagtaasi dalbanaysay in nala ka qaado. waxaana uu yidhi in arrintaasi ay jirto. waxaa la weydiiyey ma jirtaa in cuntada intaasi la eg caruur aad siinayseen? maya ayuu yidhi, xitaa wax u dhow oo 1,000 caruura wax u dhow cunto weligeen ma aanan siinin ayuu yidhi. sidaas darteed waa arrin nala ku amray inaan sameyno, lacagtaasi marka naloo keegana 30,000 oo kaasha oo kickbacka ayaan bixin jirnay. sidoo kalena Amy Back waxyaabaha ay samaysay waxaa ka mid ah in dad baarar ka shaqeeya ay ka dhigaysay in guddiga Feeding Our Future boardka ay ku jiraan guddiga guud ee ururkaasi wadayay. waxaa jiray nin kale oo isaguna bartender ah oo dadka cabitaanada dadka siiyo St Paul oo magaciisa John Sinclair la yiraahdo, in isagana maxkamadda la soo hor istaajiyay oo la weydiiyay haye guddigan ayaad ku jirtaa maxaa jira. marka wuxuu yidhi Amy Back waa inoo timid, waxayna tiri magacyadiina ayaan u baahanahay, urur ayaan aasaasaya, marka aan aasaasa kadibna magacyadiina meesha waan ka saaraya. sidaas darteed ayay magacyo nooga qoratay. waxaa la yidhi kulamo ayaa jira aad ka qayb gashay, xitaa mooshin aad soo gudbishay. wuxuu yidhi mooshin wuxuu yahay maba aqaano, laakiin maba jirta ayuu yidhi in aan guddigaasi ka mid ahaa oo kulamo aan ka qayb galay, islamarkaana aan guddiga Feeding Our Future aan boodkaasi ka mid ahaa. marka horeyna waa tii nin kale ay jirtay oo isagana bartender ahaa oo isaguna arrintaasi beeniyey. marka dad ay isaga soo qoratay meeshaas ay uga dhigto in dadkaasi ay guddiga ay ku jiraan oo ay kala wadaan hawsha. dhammaantoodna waxay yidhahdeen inagu waxba ma aanan ka ogin, magacadeena sababta halkaasi loogu qoray kulamo aan ka qayb galnay ma jirto, guddigaasina gabi ahaanba ma aanan ka mid ahayn. marka toddobaadkan ayay soo gabagaboobaysaa maxkamaddu. marka ay soo gabagaboodo kiiska waxaa gacanta loo gelin doonaa guddiga xeerbeegtida oo 12 qof ah. iyaga ayaa markaasi kala go'aamin doono in dembi ay leeyihiin Amy Back iyo weliba Salim Saciid. markaasi kadib haddii dembi lagu helo xukunkana waqti kale ayuu noqon doonaa. marka toddobaadkii ugu dambeeyey ayay hadda maxkamaddu ay ku jirtaa. dhinaca kale Donald Trump waxaan ogeyn muddo badan inuu hakiyey taariftii ama canshuurtii 25% wadamada Canada iyo Mexico uu ku soo rogayay kadib markii ay sheegeen in xuduudda ay ka ilaalinayaan daroogada iyo dadka sharci darrada ah ee dhinaca Mareykanka u soo gudbaya. 10,000 oo ciidamada ay Canada geeyeen xadka, sidoo kale Mexicana sidoo kale waa ay geysay. waxayna sheegeen daroogada iyo dadka soo gudootiga sharci darrada ah inay la dagaalami doonaan. laakiin Trump waxa uu yiri weli go'aankayga waan qaadanaya, min 25% ayuu wadamada Canada iyo Mexico ku soo rogay. xalay ayayna arrintaasi dhaqan gashay. waxaa la leeyahay arrintaasi saameyn ay ku yeelan doontaa dhaqaalaha wadanka Mareykanka, suuqyada saamiyada hoos u dhac weyn inuu ku yimaado ayaa la filayaa. waxaana sidoo kale taarifta canshuurtu ay tahay kambaniyada alaabtaasi Mexico ka soo qaadaya ama Canada oo Mareykanka geenaya ayaa lacagtaasi bixinaya. kambaniyaduna waxa ay markaasi ku dalacayaan dadka shacabka ah marka ay ka iibinayaan. marka arrintaasi saameyn inay ku yeelato dhinaca sicir bararka Mareykanka ayaa la filayaa. Shiinaha 10% waa kii hore Trump ugu soo rogay, haddana 10% ayuu ku kordhiyey. Shiinuhuna waa ay ka jawaabeen, waxay yiraahdeen alaabaha dhinaca Mareykanka loogu imaanayo inaguna 10 ilaa 15% ayaan ku kordhinaynaa. Canada ra'iisul wasaare Justin Trudeau waxa uu sheegay 25 bishan marka la gaaro in sidoo kalena ay canshuur ku soo rogayaan alaabaha dhinaca Mareykanka uga imaanaya. marka ma laga yaabaa in haddana wada hadal kale uu dhaco oo Canada iyo Mexico iyo Mareykanka ay ku heshiiyaan in canshuurahaasi la joojiyo, isla markaana bedelkeeda waxyaabo kale ay ka wada hadlaan oo ay ka heshiiyaan. marka waan arki doonaa sidoo kalena arrimahaas waxyaabaha ka soo kordho, laakiin saameyn weyn ayaa dhaqaalaha guud ahaan caalamka ay ku yeelan doonta ayaa la leeyahay. arrintan aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.